kulanti wanaagsan dawdiyaal kuna soo dhawaada barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya. Qodobadan maanta barnaamijkeena ku soo qaadi doonana waxaa kamid ah wararkii ugu dambeeyay ee natiijada kulan xasaasi ah oo dhex maray madaxweyne Farmaajo, ra'iisul wasaare Roble iyo madaxda saddexda maamul goboleed ee taageersan filla Soomaaliya. Madaxweyne Qoorqoor oo qaatay go'aan ka yaabiyay madaxweyne Farmaajo iyo mucaaradka xog ku saabsan qorshe ay degeen isaga iyo ra'iisul wasaare Roble oo soo shacbaxday. murashax madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo wajigabax kala kulmay beeshiisa kadib markii uu dalbaday in loo xiro kursiga xildhibaannimada aqalka hoose waa samaxay go'aankiisa cusub. wararkeena kalena waxaa kamid ah Generaal Xuud oo hanjabaad culus u diray madaxda Hirshabelle xilli uu beeniyay in uu wada hadal la yeeshay dabageed iyo Mareykanka oo shaaciyay in uu fashiliyay weerarkii ugu weynaa oo laga fulin lahaa garoonka diyaaradaha Kaabul iyo Mareykanka oo jab kale ka cabsanaya. qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa barnaamijka insha Allah waana subax Isniin ah 3 bisha 8 ee Agoosto sanadka 2021. barnaamijkan wararka Soomaaliya waa mid aan ku soo gudbino dhammaan dhacdooyinka dalka. haddaba daawada ka qayb qaadada booliska dalka inagoo ka dheeraanayna wax walba oo dib inoo celin kara. waad ku mahadsantihiin inaad taasna la fahantaan fadlan la faafiyo wararka oo gaarsiiyay saaxiibadeena idinka oo ku share gareynaya baraha bulshada. mahadsanideen. aynu ku bilowno wararkeena. waxaynu ka hormaraynaa wararkii ugu dambeeyay ee arrimaha siyaasadda dalkeena iyo kulamo ka dhacay saacadihii la soo dhaafay magaalada caasimadda Muqdisho kuwaas oo yeelanayeen madax markaasi kala duwan. warar la helaya ayaa waxay sheegayaan in kulan xasaasi ah uu dhex maray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra'iisul wasaaraha xukuumadda Maxamed Xuseen Roble iyo madaxweynayaasha saddexda maamul goboleed ee taageersan filla Soomaaliya ee kala ah Galmudug, Koonfur Galbeed iyo waliba sidoo kale ee Hirshabelle. xogaha warqad TV uu helaya ayaa waxay sheegayaan in kulanka uu dalbaday madaxweyne Farmaajo waxaana ka qayb galay Qoorqoor, Lafta Gareen, Guudlaawe iyo Roble. sidoo kale Fahad Yaasiin ayaa joogay kulankaas sida wararku ay nagu soo gaareen. madaxweyne Farmaajo waxa uu dalbaday taageero iyo in isaga iyo Roble ka heshiiyaan wixii khilaaf ahaa ee muddooyinkii u dambeeyay markaasi u dhaxeeyay. ra'iisul wasaare Roble waxa uu sheegay in dhankiisa uu heshiis walba qaadanayo, laakiin dalabka madaxweyne Farmaajo ee ah in doorashada lagu taageero ayaa noqday mid fashilmay oo markaasi aan sidii loo baahnaa filla Soomaaliya aysan u helin. ra'iisul wasaare Roble waxa uu ballan qaaday in uu dhexdhexaad noqonayo, laakiin filla Soomaaliya ayaa shaki gelisay warkaasi. kulankan ayaa la sheegay in uu markaasi dhacay habeen ka hor isla markaana ka dhacay madaxtooyada Soomaaliya, balse xogaha waqti dambe ay markaasi soo shacbaxeen. madaxda kale ee kaalinka joogtay isla markaana kulanka ka qayb gashay ayaa ballan qaaday inay Farmaajo taageeri doonaan, laakiin madaxweynayaasha ayaa ku gacan seeray in dad gaar ah kuraas loo xiro si ay Farmaajo ugu codeeyaan. arrintaasi oo ah arrin markaasi dhib weyn ku noqotay madaxweynaha waqtigu ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. waxaa la sheegay in madaxweyne Farmaajo uu mar kale ku adkeeyay madaxda maamul goboleedyada si gaar ah Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle inay taageeradooda aysan iyagu wax shaki ah gelinin, maadaama hogaamiyaha maamulka Galmudug Axmed Cabdikaari Qoorqoor isaga cabsi badan laga qabo ayna suurtagal tahay in murashaxiin badan oo mucaarad ah uu soo saaro sidii uu sameeyay doorashadii aqalka sare oo markaasi xubno mucaarad ah uu ka soo qayb galiyay tartanka doorashada aqalka sare isla markaana ay kuraastooda heleen. si kastaba madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa uu dadaal badan ku bixinayaa sidii uu mar kale ugu guuleysan lahaa kursiga dalka ugu sareeya filla Soomaaliya. waxa uuna dadaalo kala duwan markaasi ka raadinaya iyo taageero maamul goboleedyada oo iyagu doorashooyinka intooda ugu badan hagaya isla markaana awood badan ku yeelanaya doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya. balse lama oga loolanka madaxweyne Farmaajo iyo tartanka uu u galayo kursiga filla Soomaaliya mar kale sida ay noqon karto, maadaama xildhibaanada golaha shacabka iyagu dhowrka boqol noqon doona aan la isku haleyn karin codadkooda, maadaama ay suurtagal tahay in ay isbedeli karaan amaba ay u codeyn karaan shakhsiyaad kale oo ay markaas danahooda ka arki karaan. siyaasadda Soomaaliya ayaana waxa ay tahay mid aan lahayn saaxiib joogta balse leh
dan joogta taas oo ka dhigi karta in Farmaajo uu mar kale kursigiisa difaacan waayo. qaybaha hore ayaad la socotaan. dhinaca kale madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor ayaa waxa uu shaaciyay in uu wato murashax gaar ah isla markaana isaga iyo Ra'iisul Wasaare Roble ay isku siyaasad ka yihiin murashaxaas ay dhisayaan. go-aanka Qoorqoor ayaa dhabar jab ku ah sida la sheegay madaxweyne Farmaajo iyo mucaaradka oo dadaal ku bixiyay in kuraasta Galmudug ay markaasi codad badan ka helaan, inkastoo arrintan fila Soomaaliya ay si weyn iyadu u dhibsanayso. Qoorqoor ayaa la soo sheegayaa inuu dhisayo murashax aanan magaciisa la helin weli, laakiin waxaa xoogeysanaya wararka sheegaya in Ra'iisul Wasaare Roble uu xilkaas isku soo sharaxayo, isla markaana Qoorqoor oo ay isku hayb yihiin Ra'iisul Wasaare Roble uu kala shaqeyn doono sidii uu markaasi ugu guuleysan lahaa kursiga fila Soomaaliya. madaxweyne Farmaajo ayaana cabsi badan ka qaba Master Qoorqoor. ila wareedyo kale ayaa waxay sheegayaan inuu jiro heshiis dhex maray Qoorqoor iyo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani, kaas oo ah in uu ku taageero in xilka fila Soomaaliya qabto, isagana uu u soo xulo Ra'iisul Wasaaraha dalka ka noqonaya wasiirka koobaad. Master Dani waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta ugu tunka roon u tartamaya madaxweynaha Soomaaliya la sii og yahay iminka in ay qorsheynayaan in ay isku soo sharaxaan xilka madaxtinimo ee Soomaaliya sanadkan 2021. doorashada wadanka ayaana waxay tahay sanadkan mid aad u adag. madaxweynaha maamulka Puntland ayaa iminka waxa uu ku sugan yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya, halkaasi oo olole xoog leh uu ka wado, iyadoo sidoo kale la filayo in uu gaaro wadanka Imaaraadka Carabta, halkaas oo sidoo kale taageero uu kaga helayo xukuumadda Dubai oo iyadu wadata murashaxiin badan oo mucaarad ah si meesha looga tuuro madaxweyne Farmaajo. barnaamijka wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya ayaad la socotaan. Warqa TV ayaad naga daawanaysaan. hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa la sheegay inuu wajigabax kala kulmay beeshiisa kadib markii uu ka dalbaday in loo xiro kursiga aqalka hoose ee beeshiisu ay ku leedahay baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. ila wareedyo la helayo ayaa waxa ay markaasi xaqiijinayaan in arrintaasi uu guuldarro kala kulmay Cabdiraxmaan Cabdishakuur. erga ka socotay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo la sheegay in maalmihii ugu dambeeyay ay ku sugnaayeen degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud ayaa waxay wajigabax kala kulmeen beelaha la isku yiraahdo Yabadhaale Ceyr, Habaraji iyo Sabuux kadib markii ay u bandhigeen kursiga sumadiisu tahay Hoob 138 kana dhaxeeya saddexdaas beelood in loo xiro Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo isagu dalbaday in kursigaasi loo ogolaado in uu ku matalo cidiisa 4 sano ee soo aadan. beelaha kursigan iska leh ayaa sheegay in kursigan hal ruux aan loo xiri karin, iyagoo xusay in kursigan ay u tartami karaan dhammaan murashaxiinta kursigan doonaya. Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ah siyaasi aad u mayal adag ayaa haatan u eg mid ka niyad jabay kursigan, waxa uuna ragga u soo dirsaday ku wargeliyay in ay Gurceel isaga soo laabtaan. maalmihii u dambeeyay ayaa waxaa jira warar soo baxay ku saabsan in Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo siyaasiyiin kale oo waaweyn oo dalka xitaa madaxweynayaal ka soo noqday ay u hanqaltaagayaan kursiga amaba kuraasta xildhibaannimo. qaybaha dambe ayaan isla soo gaarnay. hogaamiyaha jabhadda la magac baxday badbaadada Hiiraan General Xuud ayaa waxa uu wareysi u bixiyay uga hadlay arrimaha ka soo kordhay ee gobolka Hiiraan. waxa uu sheegay inay been abuur tahay warar soo baxay oo sheegayay in isaga iyo madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle Yuusuf Dabageed ay markaasi kulan yeesheen. General Xuud ayaa ku eedeeyay maamulka Hirshabelle in madaxweyne uu ka yahay taliyaha nabad sugidda Fahad Yaasin, sida uu warka u dhigayna aan marnaba arrintaas wax heshiisa laga gaarin. waxa uu wareysigiisa kusoo hadal qaaday arrimo badan oo heshiiska hordhac laga gaaray xiisada beledweyne iyo waxyaabaha kale oo markaasi hadalka ugaaska Xawaadlo uu ka mid yahay. arrintan ayaana kusoo aadaysa iyada oo la soo shaaciyay maalmihii dambe ama saacadihii dambe in laga heshiiyay arrintii gobolka Hiiraan ka taagneed. ugu dambeyntiina weerar ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka ku qaadeen caasimadda Afghanistan ee Kabul ayaa ka hortagay weerar kale oo ismiidaamin ah oo lagu qaaday garoonka diyaaradaha, sida ay sheegeen saraakiisha militariga Mareykanka.
weerarka ayaa lala beegsaday gaari ay saarnaayeen ugu yaraan hal qof oo xiriir la leh urur goboleedka islaamiga ah ee Afghanistan sida uu sheegay taliska dhexe ee Mareykanka ayaa ka digay suurtagalnimada weeraro kale maadaama daadgureynta dadka ay sii dhammaanayso. weerar bambaano ah oo Khamiistii lasoo dhaafay ka dhacay garoonka diyaaradaha ee Kaabul ayaa waxaa ku dhintay dad gaaraya 170 qof oo ay ku jiraan 13 askari oo Mareykan ah. ururka la magac baxay dowladda Islaamka ee ISIS-ka ayaa sheegatay mas'uuliyadda weerarkaas. Mareykanka ayaa aargudasho ahaan waxa uu isna gelinkii dambe ee Jimcihii duqeyn xagga cirka ah ka fuliyay bariga Afghanistan isagoo sheegay inay dileen 2 xubnood oo sarsare oo ka tirsan kooxdaas. Axadii Captain Bill Urban oo ka tirsan taliska dhexe ayaa sheegay in Mareykanku uu qaaday weerar kale oo bartilmaameedsan oo lagu fuliyay diyaaradaha nooca aan duuliyaha lahayn kaas oo loogu talagalay in meesha looga saaro khatar ku soo food leh garoonka diyaaradaha ee Kaabul. qodobkaas ayaa ugu dambeeyay warkeena tan iyo warkan war lamida intaynu dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.